baraha kiska murugsaniyo sharciga murantiiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska kamida mataanaha nabadgelyada baraha kiska murugsaniyo sharciga murantiiraya cadaaladda meel marshiyo nabaar booliska kamida السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا وركا بوليسكا دولديانكا Soomaalida warkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yuusuf qodobada ugu door koreen ee warkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah kulan wada tashi oo ku saabsan xaaladda nabadgelyo ee magaalada Jigjiga ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka Sayid Maxamed Cabdilaahi Komishineer ku xigeenka Komishinka Booliska Dowladdeegaanka Soomaalida Gaashaanle Sare Maxamuud Sheekh Axmed ayaa noogu warbixiyay geedi socodka shaqo ee baarista kulan lagu gorfeynay adkeynta nabadgelyada ayaa ka qabsoomay Komishinka Booliska Dowladdeegaanka Soomaalida qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahintood u diyaar garow kulan wada tashi ah oo ku saabsan xaaladda nabadgelyo ee magaalada Jigjiga ayaa ka qabsoomay hoolka shirarka Sayid Maxamed Cabdilaahi warbixin amuurtaas ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay wariye Cabdinaasir Seerar shirkan oo ka qabsoomay madasha shirarka Sayid Maxamed Cabdilaahi Xasan isla markaana hogaaminayay hoggaan ku xigeenka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Axmed Gurey kana soo qayb galay maayarka mudane Cabdi Fataax Ibrahim iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay Komishinka Booliska iyo kan maamulka magaalada Jigjiga iyadoo intuu socday shirkan diiradda lagu saarayay qodobo ay ka mid ka yihiin sugidda amniga wada shaqeynta booliska iyo shacabka ku tiirsanaanta bulshada iyo nabadgelyada ka jirta magaalada Jigjiga si shacabka loola socodsiiyo xogta iyo fariimaha hadba wixii soo kordhay waaqaca dalka maadaama loogu diyaar garoobayo doorashadii lixaad ee dalka oo la soo gabagabeyn doono muddo yar ay ka harsan tahay kadib markii uu soo dhamaaday kulankaasi ayaa waxaan ujeedada guud ee shirkan waxaan ka weydiinay hoggaan ku xigeenka nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Axmed Gurey kaasoo faahfaahin dheeraad ah naga siiyay ujeedada guud ee kulankan waxay ahayd wada tashi bulshada kale ee nabadgelyada magaalada iyo sidii loo sii horumarin lahaa wax badan baa iska bedelay magaalada nabadgelyada fiican tahay marka in la sii wado iyo qorshuhu yahay marka inaan la tashanay ahayd oo talooyinkooda dhageysano isla markaana la socodsiino talaabooyinka cusub iyo waxyaalaha ku soo kordhinayna waxa ugu muhiimsan waxa weeye sida caadiga mar walba waan markii muddo la joogo mar baa loo yeedhaa dad ka socda xaafadaha magaalada oo culimada iyo waalidiinta iyo macallimiinta iskuulada iyo maamulka qabliyowga ama xaafadaha marka si guud waa in wixii isbedelay iyo say dareemayaan la weydiiyo wixii soo kordhayna ay iyagu taladoodana siiyaan annagana aan la socodsiino kolba talaabooyinka cusub aan qaadayno marka saan bay ku saabsanayd magaaladu way weynaanaysaa aad bay u koraysaa mar walbana dad badan baa soo degaya oo waxay noqonaysaa maalinta ka dambaysa bulshada ku sii badanaysaa marka khataraha nabadgelyada way iyaguna saan bay la mid yihiin oo way sii badanayaan marka waxyaalahaas aan iska warsanaynay aniga bulshada maartay aan la naqaashaynay taasoo ku saabsanayd inaan wargelino dareenka nabadgelyada aan u sheegno ee xaafadaha iyo aan ka qabno dhalinyartii rabshadaha iyo waxa abulan samayn jirtay hoos u dhacday ay wanaagsan tahay ay u baahan tahay in la sii wado intaas ay ugu muhiimsanayd oo dadaalkii aan samaynay 6 bilood la soo dhaafay uu mara fiican dhalay marka haddana inaan sii horumarino waxaa jira xarumo cusub oo booliska lagu talagalay oo magaalada ka furmi doona haddii la yidhaahdo mar dhow kuwaana waanu sheegnay bulshada inay hawlgali doonaan degdeg si iyaduna waxbay ka tiri doonaan nabadgelyada magaalada waxaa kaloo iyaduna u sheegnay inay sii xoojiyaan wada shaqaynta ay booliska la leeyihiin iyo isku xirnaanta booliska iyo bulshada waxaa jira mar dhexdii ahayd in la sameeyey wax la yiraahdo guddiga madax bannaan la talinta booliska oo iyagana nabadgelyada qayb ka geysanaya waxa ku jira sidoo kale macallimiinta waxa ku jira odayaasha waxa ku jira hooyooyinka iyo imaamyada masaajidda qaarkood iyo ardayda iskuulada dad badan baa isugu jira
marka dadaalka guud aan wadnaan baan wargelinaynay iyagana aan taladooda dhageysanaynay waxa ugu badan ka soo baxay ama inoo sheegeen waxa weeyaan isbedel dareemaysa magaaladu ay aad u fiican tahay nabadgelyadu inaan sii horumarinana waan u sheegnay marka in sidoo kale waxaa jira inay taxadaraan magaaladu doorasho nagu soo foolle in Itoobiya isniinta laga bilaabo meel ay ka dhacayso doorashada waddanka inta badan inaga tan dib uga dhacday laakiin inta xilliga ka horreysay in si fiican loo diyaar garoobo oo si nabadgelyo nagu dhacdo hadii la yiraahdo iyo si guud bay nabadgelyada la sugo waxaa jira dareemahan qabno oo ka imaanaysa aan ka qabno inay maadaama deegaanka lagu soo laabanayo inay ururada xarjirka ay saameyn ku yeelan karaan dhalinyarta iyo iskuulada iyo meelaha quraanka lagu dhigo iyo masaajida kuwan inaan maartay aan wargelinta bulshada siino dadkina la joogayna aan talada wax ka siino iyagana aan ku baraarujino dadku ku baraarugsanaadaan marka wax badan oo ku saabsan nabadgelyada magaalada laga wada hadlay wayna fiican tahay aad bay wanaagsan tahay waana sii wada doonaa haddii la yidhaahdo komishineer ku-xigeenka komishinka booliska dowladdeegaanka soomaalida gaashaanle sare maxamuud sheekh axmed ayaa noogu warbixiyey geedi socodka shaqe ee baaristu iminka tan imika xafiiskan kaytaad u jeedaa iminka baaristiisu waa dhowr laamood oo iminka isku hoos jirta kuwii xulayaa carruurta iyo arrimaha dumarka baaristoodii xafiiskan hoos yimaado oo gaar baariyaa jira waxaa jira kii ashaaraga iyo faraha iyo daymaha gaarka ah iyo wixii teknika waxaa jira tii su-aalaha iyo weydiimaha iyo qaabka loo qaadahayo saddexdaa qaabba iminka yani maartay tii shiralka gaadiidka iyo markay iminka dhibaatooyin dhacaan afartaa laamood afartiiba baarisu yihiin afartaa nooc teknika kala duwan qaabka loo baarahayo shaqadoodii weeye xarunta iminka waxay ka kooban tahay baaristu marka teeda heer deegaan markay sidaa tahay tii gobolka iminka iyaguna qaabkaas kale tahay iyo qaabka iyaguna wada shaqayn lahaayeen iyagana howlahoodii shirar joogta aan uga wada lenayn macalila council wixii dhibaatooyinka ka dhacay iyo xaaladaha oo dhan dabagalkoodii iyo sidii wixii dhib keenahaya markaa meelo kala duwan falalka lagu geysanayo loo soo saari lahayo iyadoo la iska kaashanayo ayaa iminka looga wada howlgalaa ciidan isku xidhan weeyaan howlihiis ilaa degmo ilaa heer deegaan ilaa heer gobol isku xidhan yihiin ay kasoo sheegaan intii wixii dhibee dhici lahaa baaqan lahaa si aynan u baaqan u lunteen u qarsoonaateen ayaa xirfado kala duwan si isu weydaarsan lahaayeen ciidanku isla kaashan lahaayeen ayaa burin marmara wax la yidhahdo ayaa lagu soo saaraya oo looga wada shaqeeya inta badan dadaalka waxa sameynaya iminka naga gacan siiya waa dhinaca shacabka oo xogaha na siinaya weeyaan oo ciddii ku dhex dhuuman lahayd ka soo saaraysa bulshada wixii naga dahsoon ee markaa aan noo muuqanin meelaha kala duwan falal aan annaga markaa noo muuqanin ilma aragta geysanayana cidda soo saaraysa ee xogta nasaay waa shacabka annaguna la shaqayn fiican iyo kasbasho maadaama leenahay shacabka markii shaqo wanaagsan aad u qabato ayaa iyaguna si daacadnimo leh inaad daacad ugu shaqayso markay ku ogaadaan hagar la'aan bay iyaguna kuula shaqaynayaan shacabka kasbasho weeyaan kolkaad inaad dadaalso arkaan shaqo fiican bay iyaguna kula qabanayaan ayagaa kaaga dheeraynaya shaqadii wanaaggii wixii la qaban lahaa marka bulshaduna si fiican ayay noola shaqeeyaan waxaan u gudbin lahaa weliba inay sii dadaalaan oo ciidanka amniga boolisku meel kastoo joogaan hagar la'aanta ay noola shaqeeyaan kulan lagu gorfeynayay adkeynta nabadgelyada ayaa ka qabsoomay komishinka booliska warkaasi waxay noo soo diyaariyey wariye cabdiraxmaan maxamed shirkan oo la iskula gorfeynayay dardargelinta geedi socodka shaqo arrimaha nabadgelyada shaqooyinka uu boolisku u hayo shacabka isla markaana ay wada yeesheen taliyayaasha rugta booliska xaafadaha iyo saraakiisha kala duwan ee ku qoran sugidda amniga iyo xasiloonida magaalada Jigjiga. Shirkan uu hogaaminayay komishineer ku-xigeenka komishinka booliska gaashaanle sare Cali Cabdi Jabbaar iyo saraakiisha dambi ka hortaga isla markaana ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidanka xoogga gaarka kaasoo ka qabsoomay xarunta komishinka booliska ayaa intii uu socday shirkan waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo adkeyn lahaa arrimaha nabadgelyada shacabkuna adeeg hufan oo dhiirigeliya loo siin lahaa iyada oo la adkeynayo sarreynta sharciga lana ilaalinayo xuquuqda aadamaha iyo sidii looga hortagi lahaa cid kasta oo isku dayda inay falal amni darro ah ka samayso magaalada Jigjiga gacan bir ahna loogu qabto loona sii wada jibaaro wada shaqaynta ballaaran ee ka dhaxaysa saraakiisha kala duwan ee u xil saaran sugidda amniga magaalada Jigjiga. Kadib markii uu soo dhammaaday kulankan ayaa waxaan wax ka weydiinay ujeedada guud ee shirkan
komishineer ku-xigeenka komishinka booliska gaashaanla sare cali cabdi jabbaar. shirkankadii wuxuu ahaa qorshihiisa guud kolley waa shaqadii boolisku uu hayay bulshada sidii loo dardargelin lahaa mid midho dhalisa oo muuqata looga dhigi lahaa halka ay taagan tahay meel ka fiican inay gaadhana sidii ay u noqon lahayd ayaaba ku saabsanaa. marka 20 qabale saraakiishii ka shaqaynaysay saraakiisha magaalada caasimadda ka howlgashay ee xoogga deegaanka iyo booliska ama ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiishii howlwadeennada ka ahayd buu ahaa shirkani. marka saraakiishaas habkii shaqada loo sii dardargelin lahaa maxaanku idhaahdaa China groupka ama caruurta akhlaaqda xun aan idhaahno amaba tuugada amaba magafayaasha aduu waxyaabaha nafta iyo maalka bulshada ama bini'aadamka lidka ku ah sidii loo yareyn lahaa ama maxaanku idhaahdaa bulshada mid deganaansho iyo maxaanku idhaahdaa cabsi la'aan mid ku nool sidii looga dhigi lahaa waxyaabaha ay ahayd habkii aan ka wada hadlaynay iyo wixii aan uu shirkani daaranaa. gebi ahaanna isu soo duuduubo sarreynta sharciga sidii loo hirgelin lahaa kor loogu qaadi lahaa ayaabay ahayd. marka caasimadda amniga ay leedahay ka muuqata iyo bildhaanta ay leedahay meel ka sii wanaagsan in la gaadhsiiyo oo bulshadu ay deganaansho badan dareento ay in badan gurigeeda markay joogto markii ay goobteeda shaqo joogto intaba ay deganaansho badan iyo xasilooni ay nafteedu ay dareento. arrimaha sidii aan loo gaadhi lahaa ayaan ka wada tashanaynay. shir looga hadlayay waxqabadka shaqo ee warbaahinta komishinka booliska ayaa ka qabsoomay howlka shirarka ee komishinka booliska. shir looga hadlayay waxqabadka shaqo ee warbaahinta komishinka booliska isla markaana ay ka soo qayb galeen shaqaalaha warbaahinta ayaa ka qabsoomay komishinka booliska iyadoo ujeedada shirkan diiradda lagu saarayay saxidda shaqooyinka la qabtay toddobaadkan iyo kuwa aan la qaban iyo soo bandhigida waxqabadka shaqo ee warbaahinta booliska iyo ilaalinta anshaxa saxaafadda. waxaana hadallo muhiim ah oo ku saabsan waxqabadka shaqo ee warbaahinta booliska halkaa ka soo jeeday madaxa warbaahinta komishinka booliska mudane cabdinaasir seeraar guhaad. xubnihii ka soo qayb galay kulankan kuwaas oo ballan qaaday in ay sii laba jibaari doonaan shaqooyinka warbaahinta sanadka 2014 tirsiga dalka. wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada mudane cabdulaahi aadan yuusuf iyo agaasinka imtixaanaadka xafiiska waxbarashada nuur aadan ciise ayaa sheegay in imtixaanka dugsiga dhexe in kaalin mug leh ay ka qaateen komishinka booliska sugidda amniga. maanta waxaan taaganahay imtixaanka inaan degmooyinka iyo gobollada u dirno marka hawshaasna si fiican ayay u socotaa. marka waxaan u mahadnaqaynaa boolis komishinka dowladda deegaanka Soomaalida iyo xubnihiisa laga bilaabo imtixaankan maalinkii Addis Ababa laga soo qaadayay ilaa hadda xubnihii ugu firfircoona ee imtixaanka ilaalinayay ayaa ilaa hadda inala joogay. haddana waxay nagu darayaan xubnahaas iyo kuwa tuulooyinka joogay degmooyinka joogay ugu firfircoon iyo ugu dhowda way la shaqeynayaan. marka insha Allah boolis komishinka waxaan ka codsanaynaa in xubnahoogaas ay faraan sida fiican hadda u shaqeynaan in la shaqeeyaan imtixaanku wax qish ah isaga oo lahayn cidii imtixaan ka shaqeysay kaliya si uga shaqeysan lahayd inay hawshaas ay ka shaqeeyaan marka uu soo noqonayana si amni ah inuu gacanta ku soo galay ka shaqeeyaan. waxaan maanta hadda diyaar u nahay oo hadda diyaar ah imtixaanka fasalka 8 bariyahan diyaarinay kaasoo hadda imtixaanka hadda reerkiisa aan bilownay oo hadda saad arkaysaa hadda baawta ay diyaar yihiin. imtixaankaas marka la remote la gaarsiin doono haduu ilaahay raado maxaa goobi lagu talagalay maxaa imtixaan ka dhici doona haduu ilaahay raado qaybta booliska wax weyn maxaa amniga ilaalada boolisku si adag bay qayb qaateen sababtoo maxaa hadda meeshu yaala wax weyn waa boolisku mishka imtixaanku yaala meeshu ku xareysay maxaa boolisku wax weyn waa iyaga soo bedelay askartu safta bay maxaa ku ilaaliyaan suuqa hadana boolisku mishka dhex yaala iyo isla meeshu yaala hadana arday askar hadana si gooni ugu qoran tahay marka xagga amnigu aad buu xagga uga sugan yahay. waxaa kaloo marka rajaynaynaa markuu hadda gaaro yimaado tagaada boolis komishinada kale hadda degmooyinka markuu aado waa inuu isla noqdaa sidii hadda meesha lagu ilaaliyo si ka adag iyaguna waa inay noqdaan kuwa marka u ilaaliya haduu ilaahay marka. waxaana sidoo kale dhankiisa ka hadlay gaashaanla dhexe weyrax waani sulub oo ka tirsan saraakiisha dambi kortoga kaasoo noo xaqiijiyay in imtixaanka si nabadgelyo leh ciidanka ay ku geyn doonaan goobta looga talagalay. qaybtan imtixaanaadka xafiiska komishinka boolisku wuxuu diyaar u yahay mar walba u taagan yahay bulshada deegaanka iyo wax walba deegaanka horumarkiisa
inay macnaha ka qayb qaataan amnigooda nabadgelyadooda xasiloonidooda xagga waan imtixaanaadka Addis Ababa ilaa hadda halkan xarunta boolisku ay ka baxayaan 12 gobol 6 ismaamul magaalo la gaarsiinay imtixaankan ciidanka boolisku diyaar buu yahay markastana ciidanka boolisku wuxuu diyaar u yahay inuu ilaaliyo amniga wax walba gaar ahaan hadda waxbarashadii kulan lagu dhiirigelinayo isdhexgalka ciidanka kala duwan ee ka howlgala magaalada Jigjiga iyo sidii ay ugu wada shaqeyn lahaayeen amniga ayaa ka qabsoomay komishinka booliska shirkan oo qayb ka ah howlgallo lagu xaqiijinayo sugidda amniga sareynta sharciga iyo sidii shacabku u heli lahaayeen nabadgelyo waarta kadib markii uu shirkan soo dhamaaday waxaa faahfaahin naga siiyay komishineer ku-xigeenka komishinka booliska gaashaanle sare Cali Cabdijibaar shirkan ujeedadiisu waxa weeye waa shirkii sabtida ee joogtada ahaa shirkaas ay ujeedadiisu tahay in lagu qiimeeyo shaqooyinka la soo qabtay toddobaadkii hore si loo garto wixii qabsoomay ee wanaagsanaa iyo wixii toddobaadkii la soo dhaafay khaldamay ee in la saxa u baahan iyo wixii in la qabta ay ahayd toddobaadkii hore ee aan la qabanin ee aan qabsoomin iyo sababta uu qabsoomi waayey markii saa loo kala garto in la wajaho caqabadihii toddobaadkii hore jiray habkii loo sixi lahaa toddobaadkan dambe shaqadiina la sii dardargeliyo taas ujeeddadiisa guud ee joogtadii waa taas ta kale maadaama uu dalku uu doorasho ku jiro waxa weeye xaaladda amniga ama deganaanshaha iyo xasiloonida bulshada si loo adkeeyo loo sii xoojiyo waxaan samaynay oo dheeraa shirkankada sabtida ah in ciidamadii ka howlgelayay deegaanka ama caasimadda gebi ahaanba qaybahoodii kala duwanaa in si adag la isugu xidho si midaysan ay u wada howlgalaan ciidanka gaarka ah armaha bitanaaga iyo booliska caadiga ah qaybaha kala duwan ee ciidanka isu wada geegabi ahaantood in ay si midaysan iyagoo hal far ah in ay u howlgalaan shaqada si midaysan oo dhow loo wada qabto bulshadii iyaga oo midaysan ay shaqadii u qabtaan bulshadu inay midaysan yihiin ciidanku hal far ay yahay hal ciidan uu yahay una kala ciidan ahayn in ay bartaan iyaguna ay arkaan ayuu shirkani saaka ujeeddadiisu ay sii dheer ay ahayd shirkii sabtida ee caadiga ahaa waxaa kale maadaama doorasho lagu jiro uu dalku doorasho ku jira gebi ahaan in magaalooyinka waaweyn lagu sameeyo baadhitaan ama xaaladooda amniga si dhab ah loo taabto oo xaqiiqo ah waayo dadka siyaabaha xun u fikiraya ee nidaamka cusub ee Etoobiyada cusub ay u dhaqaaqday ee dimuqraadiga ah ee xorriyadda ah kuwa diidan oo nidaamkii cidhiidhiyoonaa ee shalay inuu sii jira raba maadaama ay jiraan kuwaasi maadaama ay ku gaban karaan magaalada gudaheeda in iyadoo nidaamkii sharciga ahaa la marayo dadka la raali gelinayo in ay danta ay iyagu leeyihiin ee naftooda iyo maalkooda deganaanshahooda iyo xasilinadooda inay tahay laga dhaadhicinayo in gudaha magaalada shaqo adag laga qabto oo aynan ku dhex dhuumanin haddii ay jiraan way jiraan haddii ay jiraan kuwayaabaha sida xun u fikiraya nidaamka dimuqraadiga ee Itoobiya ay u jahaysatay diidan haddii ay jigjiga bal ee ku dhex dhuunta maadaama ay amni badan uu ka muuqdo ay is yiraahdaan si ayna ugu hirgelin inay ku dhex dhuuntaan shaqooyin la qorsheeyay oo socda ayaa jira marka dadka habkii
markii shaqooyinka la qabanayo wax ay dadku dhibsadaan iyo wax ay qoonsadaan midna inaan loola imanin oo xagga askarta ka imanin hatta dadka shacabka hadii uu qof uu si wax khalad kaga yimaado ciidanka inay u dulqaataan markay shaqooyinka ku jiraan la raali geliyo isagoo caytamaya hadii matal ay khalad ka yimaado qofkii in la raali geliyo isagoo la raali gelinaya haddana shaqadii amniga sidii ay ku qabsoomi lahayd loo wado ayuu shirkan isaaka daaranaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa warka booliska dowladdeegaanka Soomaalida warkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yuusuf aniga iyo dhammaan inta gala qayb qaadatay waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo